قصة طريفة أذقنا بدن جماعة من السلف الشيغان شعبي با كمدا أبو نعيم با في الحلية كل شيء وقصة حكمة أو لغلا بحايو هذا مرتوي هذا البلغلا بحايا شعبي وحول وحال الشيغي شعبي ومن أمن التابعين وذكرن ريسان نيمبا وحو ugaadhsaday qabsaday shimbirta la yiraahdo qumburowga qumburow ma taqaanaan oo qooleydu ku dir yahay laakiin uu ka yar yahay qooleyda dirkeeda laakiin uu ka yar qumburow baa la yiraahdaa shimbirtaasuu qabsaday nin markuu dhab siiyay yay la hadasho waxay tiri niyow hay dilin bay tiri haddaadan i dilin saddex xikmo ku anfacdaan kuu sheegay bay tiri حول محاوضا لهذا وحيد ترى أنا هذا الدشود عنته هلو يتشيل هذا هلي بقى بتوحبك هاقتر ما يجي قاعد هاي سنة هرتا كاها قبتر ما هي واحد يدي شاب هرتا بلاش أيضا سيدات هذانا صد حكمان كوشيغا هي نادي الدليل هذا قو أنصت وهي هي بوري وحيد ترى حكمة كوبات مركز يسيد يسان كوشيغا حكمة الله بعدنا markaan geedka fuulaan ku sheegaya midda saddexaadna qowga dheer markaan dhakada kaga istaago yaa ku sheegaya culimadu hadal bay kula baxayaan waana xaqiiqo jirta marka bini aadamka la fiiriyo markaasuu sii daayay waxay tiri xikmada koowaad waxaa weeye laa talhafanna calaa maa faataka cafwan yaana khaldan waxay tiri intaadan isii daynin horta mid baan kuu sheegayaan wax la'aan aan kaa tegin mid baan kuu sheegay markaad isii daysana oon geedka fulana mid baan kuu sheegay markaan qowga fulana mid baan kuu sheegay ta koowaad waxaa weeye wax ku dhaafay bay tiri ha ka qoomamayn sidaaduba wax ku dhaafay shalaytiyo qoomay kugu reebin dhiig karna isu kugu ridin waa laga socdaa way ku martaytaa ha ka daba tag waa gartay buur geedka markay fuush yaa wuxuu yidhi tiisaad labaad xigmadii labaad i ballan qaaday soo daa وحيث لا تصدقن ما لا يكون أنه يكون هالرمين بيتي وحان دعين إنه دعي دونه وحان هذا أذى رجل أذن هبين إنه دعي دونه آمين كذب مركي جيت كيف هو شيء بي الله هذا شو وحيد تري دقم باطاي تري محايا لي أيام درون نصيب حنا واتاي تري haddaad i qabsan lahayd oo gowrici lahayd meesha dhuuntayda ee gulgulada ama xawsal la yiraahdo waxa ku jiray tiri laba dheeman baa ku jiro mid walba ay u dhiganto 20 diinaar oo 20 mithqaal culays ku dhaya 20 ku dar 40 diinaar oo dahab ah waa taqriiban 170 gram oo dahab ah 170 gram oo dahab gabdhaha lagu guursada hadda soo ma qaybna meer baa loo siiyaa qaybna guriga lagu dhistaa marka waxay tidna ayaan daran baa tahay oo nasiib xun intaad qabatay anoo meeshan dahab iiga buuxay iyo dollar yaad isii days aad buu ninku u shalaytoodo waa qoomamay markaasuu ku yidhi waa yahay markuu ilmada iska tiray buu yidhi intaa gartay bal tii u dambaysay ii ballan qaaday shaydaan baa tahay tii u dambaysay bal sheeg xikmadii u dambaysay markaasuu waxay ku jiri seen xikmadii u dambaysay saddexaad kuugu sheegi adoo labadii horeba halmaamay maxay horaan ku soo jiri wax ku dhaafay ha ka shalaytoon waxaadan hubinna hubaal ha ka dhigin labadaasoon kuu soo sheegay ood hilmaantay midda saddexaad maxaa lagaaga dhigay bay tir doqon baaba tahay haddana waxay tidhi inaad doqon tahay waxaa ku tusaysay tidhi aniga qumburow baa la yidhaahdaa waxay tihi baalkayga iyo hilibkayga iyo laftaydii iyo luddiga dhacaan waxaan leedahay la isku daro culayskaygu 20 mithqaal ma gaadhay tidhi waad ogtahay waxaanan kuu sheegay meeshaan inay ku jirto 40 mithqaal سيد هرت أورميس يتر دبالني بدكادا سيد أورميس أيضا دم بانرنين وحن كنت نقرأ قبضنين ويبادر تيجي لكت وحيد الله يلود يبالك واحد هذا اللي سكدره مدني ويحان كوشة نسكي حتى مدني وأنا أورميس وادي هي المدة الدنيا هي اللي العقب بايدافتي $1 بايداف عقب فرطة غنيزنتا
marka waxay culimadu mithaalka u keenaan waa mithaal ay u keenaan iyo xikmo loogu talagalay qanaacadu iyo iimaan samidu balaayo badan bay kaa badbaadaysaa hunguri la'aantu ama iimaan la'aantu waxay kugu ridaa balaayo ku dhex fadhis caqiido darrana way kugu abuuraysaa inaad been xataa rumayso been aad rumayso 40 mithqaal oo dahaba xagee laga shimbirta wada garta xagee tahay midda kale qooleydu meesha xawaa kuma qaadaba midda waaweyn qayb laakiin qumbirogu wuu baahli yaro halkan ka gaaban way qoolida nuskeeda maba qaadi kara waxaas oo dhan wuuna aaminay muhiimadu marka waxa weeye degdega adduunka iyo xooladoonku iyo bil raadisku iyo hebel baa ku dhaafaydu Soomaaliya iyo sidin ku ridin meela daran sayidka qoli u dur xiliyaan qaraabana markaas wuxuu yiri hungurigu reehebel wuxuu ka ridaa hogobyo shaytaan reebelki sheegi maaye wuxuu yiri hungurigu reehebel wuxuu ka ridahayaa hogobyo shaytaan hungurigu wuxuu ka tuuri dakhal sheeb qawiyo ka tuuri laago bad qoliyo Soomaalida arintay dhandhan ban maaradayna iyo miir kuli baa raadinayna waagi dambe iyagoo waa naloo keeno quraan aanu saaray Soomaalida waxaan waa aad in looga fiirsado u baahan yahay